waxay shaqaalaysiiyeen maamadda ah ama gabowday si ay u nadiifiso dhismaha weyn ee qasriga, balse markay aragtay qofka iskale qasrigaas waxay bilowday inay oydo. markay qofka da'diisu weynaato waxay ku keentaa saamayn, sidoo kalena xaaladdiisii iyo caafimaadkiisiiba wuu isbeddelaa. balse waxaa jira dad adag oo xitaa hadday da'doodu weynaato isku daya inay adkaystaan, sabraan oo ay nolosha la halgamaan, iyadoo aadba moodayso inay mararka qaar dadka noocaasiya ka shaqo wacan yihiin, sidoo kalena ka adkaysiyo dulqaad badan yihiin da'doodu yar tahay oo shaqooyinka lagu kari la'yahay. marwada qisadeennu ay ku saabsan tahay waxaa la yidhaahdaa doona. waxaa ka muuqanaya raadadkii gabowga. dabcan qofku markuu weynaado ama da'diisu ay kororto ma ahaanayo siduu ahaan jiray dhallinyaronimadiisii. caafimaadku wuu isbeddelayaa, xubnaha jidhka qaybo badan oo ka midana wuxuu qofku ka dareemayaa inuu ka tabardarreeyey, xanuunna uu soo daaqilayo. marwadan aan qisadeenna diiradda ku saari doonno waxa ay ka shaqayn jirtay guryaha oo ay nadiifin jirtay si ay u hesho quudka maalinteeda, waxayna ahayd mid nolosheedii oo dhan ku jirtay halganka noocaasa iyo shaqooyinka kala jaadka ah ee u badnaa nadiifinta guryaha si ay u hesho wax kaafiya nolosheeda. shaqooyinka noocaasa ay u kala gooshi jirtay, balse muddo dambe waxay ahayd mid nasanaysa, gurigana iska joogta. balse maalin maalmaha ka mida waxaa looga yeeray mid ka mida qasriyada waaweyn si ay uga shaqayso halkaasi, nadaafadna ay uga qabato. balse may ogayn in nolosheeda oo idil ay isbeddeli doonto marka ay gasho oo ay tagto qasrigaasi. aanu laabanno noloshii doona xilligii ay yareed iyo sida ay ku soo bilaabatay. doona waxaa ka yareed gabar walaasheed ah. reerku wuxuu ka koobnaa iyada doona ah, walaasheeda ka yar iyo hooyadeed. hooyadeedna waxay ahayd sidoo kale mid nadiifisa guryaha, sidaana ku soo hesha quudka reerkeeda yar. balse nasiib xumo, hooyadii reerka u shaqayn jirtay waxaa ku dhacay xanuunka loo yaqaano xubna xanuunka. intaa kadibna waxay ku qasbanaatay inay guriga iska joogto, maadaama aanay awoodin inay qabato howlihii ay qaban jirtay iyo shaqooyinkii ay ka shaqayn jirtay. doona iyadoo yar waxay ku qasbanaatay in markaasi ay gasho suuqa, sidoo kalena ay shaqayso, beddeshana hooyadeed si loo helo wax reerku uu ku noolaado ama noloshooda kaafiya maalintaasi. shaqooyin kala duwan ayay nolosheedii soo qabatay doona. mar waxay nadiifin jirtay guryaha iyo beeraha, mar waxay ka shaqayn jirtay jaraa'idyada iyo wargeysyada inay dadka ka iibiso, marar kalena shaqooyin kale oo noocaasa ayay qaban jirtay. intaas waxay u dadaalaysaa in reerkeedu maalinna aanu qadin. waxay ku qasbanaatay inay isaga tagtay iskuulka, maadaama aanay isku keeni karin shaqo iyo sidoo kale inay wax barato. balse waxay ku adkaysatay in walaasheeda ka yar ay waxbarashada dhammaysato, iyadu si ay u halgami doonto nolosha qoyska, sidaana ay walaasheeda yar ku noqon doonto mid mustaqbal ifaya leh. ugu dambaynna ay nasin doonto walaasheed, sidoo kalena reerkan ay u soo shaqayn doonto. sidaa daraaddeed ayay walaasheeda yari ugu dadaali jirtay waxbarashada, maadaama tii ka weyneyd ay waxbarashadii seegtay, dantuna u saamixi weysay. duruufihii nolosha oo ay maraysay ayaa doona saameeyey, iyadoona middaa ay ku keentay inay noqoto gabar adag oo dhibaatooyinka iyo duruufaha soo marayaba u adkaysan karta, sidoo kalena u dadaalaysa reerkeeda ay jeceshahay. walaashay ka yaree doona dadaalkeedii ayay sii waday, maadaama dardaaran adag ay siisay walaasheeda ka weyn. sidaa ayay ku socotay nolosha reerkani ka kooban 3 qof. maalin maalmaha ka mida doona waxaa loo soo bandhigay shaqo. shaqadaasi oo ahayd inay nadiifiso guri weyn oo qasri ah. guriga waxaa iska lahaa nin askari ah. waxay ahaayeen reer aad u wanaagsan, run ahaantiina dhaqankoodu yahay mid aad u qiimo badan. waxay ula dhaqmi jireen gabadhan u shaqaynaysa ee doona sida gabar iyaga reerkooda ka dhalatay oo kale. waxay siin jireen jacayl iyo daryeel, erayo wanaagsan inay kula hadlaan, si qurux badan inay ula dhaqmaan, iyagoo meel u saaray cuntadeeda iyo mushaarkeeda oo kaamil ah. sidoo kalena waxay ogaadeen xaaladda hooyadeeda,
waxayna u ballan qaadeen inay daweyn doonaan iyaga ayna dhiibi doonaan dhammaan masaariifta iyo lacagaha looga baahan yahay isbitaalka ama dawooyinka lagu iibinayo. xitaa waxay Doona hooyadeed u qaadeen caasimadda si ay halkaasi uga hesho daryeel wanaagsan kana tayo badan kan magaalada hadda ay degan yihiin. dhab ahaantii wax wanaagsan ayay u sameeyeen. waxay reerku Doona ku dhiirigeliyeen inay waxbarashadii ay ka soo tagtay ay markaasi ku noqoto, marnabana aanay ka gaabin iyadoo isleh ciddan shaqadeeda ayaad ka mashquulaysaa. balse Doona waxay iswaafajisay labadii waqtigii shaqada iyo waqtigii waxbarashada. run ahaantii jawi cusub oo nolosha ah ayay gashay. waxbarashadeedii ayayna ku dadaali jirtay ilaa markii dambe ay dhammaysay dugsiga sare. xilligaasi ay dugsiga sare dhammaynayso, walaasheedii ka yarayd waxay dhiganaysay jaamacad. Doonana waxay u dhaxaysay waxbarashadaas ay ku dadaasho iyo shaqada ay ka qabato guriga askariga ee reerka wanaagsan sida quruxda badanna ula dhaqmay ah. maalin maalmaha ka mida gambaleelkii albaabka ayaa soo yeeray. Doona way soo dhaqaaqday si ay u furto albaabka. way furtay, balse markay furtay waxaaba taagan wiil dhalinyaro ah oo quruxsan, sidoo kalena bilic wanaagsan oo xiran dharkii askarta. markay sidaa u aragtayba way garatay, sababtoo ah sawiradiisa ayaa waxa ay ku dhagan yihiin guriga oo dhan. haddaba waa kuma ninkaasi? waa Artero. waa wiilka ay dhaleen reerkan ay Doona gurigooda ka shaqayso. kulankaas ay Doona iyo Artero kulmeen, sidoo kalena albaabkay isku arkeen. labadooda mid kastoo ka mida falaartii ka helitaanka iyo jacaylka ayaa saaqday qalbigiisa ama qalbigeeda. waxay dareemeen farxad isku soo jiidaysa iyo sidoo kale in quluubtoodu ay isku soo dhowaanayso. Arterana wuxuu go'aansaday in gabadhani ay tahay gabadhii noloshiisa ifin lahayd, sidoo kalena iyada mooyee aanu mid kale marnaba doonayn. wuxuuna u arkayay inay Doona tahay gabadhii noloshiisa munaasibka u ahayd, sidoo kalena uu ku riyoon jiray. haddaba Artero wuxuu go'aansaday inuu arrintaa la wadaaga hooyadii, sababtoo ah hooyadii waxay ahayd marwo naxariis badan, sidoo kalena aan Doona u arkaynin gabar ka qiimo hoosaysa reerkooda. waxayna u arki jirtay kuna eegi jirtay il ixtiraam iyo qadarin iyo qiimayn. waxayna ka aaminsanayd in Doona ay tahay gabar halgan badan, sidoo kalena adag oo ah dadkii loogu talagalay noloshaba inay la qabsadaan, oo aanan ahayn qof duruufaha u jaba. 6 bilood kadib, qisadii quruxsanayd ee cajiibka ahayd ee jacayl ee dhex martay Artero iyo Doona waxay isku beddeshay inay reer aasaasaan, sidoo kalena ay ka dhabeeyaan jacaylkii dhex maray. way isguursadeen, waxayna qaateen fasax si ay halkaasi ugu soo qaataan bisha malabka. iyadoo ay ku guda jiraan fasaxii, waxaa la soo wacay Artero, waxaana loo sheegay in dagaal la aadayo, sidoo kalena uu degdeg ku yimaado. haddaba safar ayuu u baxay, xaaskiisiina wuu ka tegey keligeed, isagoo ajiibaya yeermada kaga timid difaacidda waddankiisa. wuu la soo hadli jiray, wuuna ka warhayn jiray, isagoo farriimo badan la wadaagi jiray. wuxuuna mar walbaa dhihi jiray, waan ku jeclahay, waana soo noqonayaa, waana imaan doonaa, ha iga walwalin, dhowaan waan imaanayaa. haddaba farriimuhu sidaa ay u socdeen oo u soo diri jiray, balse farriintii ugu dambaysay waxay ahayd mid muruga leh, run ahaantiina xaaskiisii walwalgelisay.